shayaaiin alinsi waljinina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya nin baa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay berri waad haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman adduunyada ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axabba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliyo ciidda lagu guro unbuu dhirgaa buu rasuulku yidhi markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinaya inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan ahlu janna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhire shaqa kuma laha adduunka waxay goosanayaan ha goostaan laakiin aakhiro ditooriya dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda inna lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibkaa eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebeloo 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 hebelaad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu 33 jir baa tihiin isku fil baa tihiin waa awowgaagii tobnaad meeshan aan laisba soo gaadhaynba inna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan adduunyadu mar waa guug mar waa dayr mar waa diraac mar waa jilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato biri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu odhanaya waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maaha way ku aftaqaannaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xoogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waa tan waa ku aftaqaannaaba iska hurhurun weeye wixii kale adeegahana khiyaar baa laguu sameeye wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an mansuura wiilasha meeshaad joogo quruxda haddaad aragto luul saa meesha loogu firdhiyey baad moodaa baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waad tegaysaaye waxaasoo dhamme waa maalmo